odayaal iyo waxgarad ka mid ah madax dhaqameedka magaalada Burco ayaa madaxweynaha Soomaaliland ku bogaadiyay magacaabista wasiirka wasaaradda howlaha guud ee Soomaaliland mudane Cali Xasan Maxamed Cali Marreexaan oo hore uga tirsanaa xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland waxayna sheegeen inuu yahay mas'uul ka soo bixi kara xilkaasi culus iyagoo ku tilmaamay in wasiirkani ahaa mas'uul u qalma mas'uuliyadda uu qaaday iyo kuwa ka sarreeyaba sidoo kale waxa ay halkaasi ka tiriyeen waxyaabo badan oo uu qabtay deegaanada laga soo doortay markii uu xildhibaan waxay sidoo kale madaxweynaha ku ammaaneen tallaabooyinka dhinaca horumarka ah ee ay fulisay xukuumaddiisu muddadii 5 sannadood ee ay jirtay iyagoo si buuxda ugu muujiyay taageero waxayna halkaasi ka cadeeyeen inay madaxweynaha Soomaaliland iyo xisbiga kulmiyaba ku garab joogaan wax kasta oo wadanka horumarkiisa ah waxay dhinaca kale xubnahan u digeen cid kasta oo isku dayda inay xumaan kala dhex dhigaan bulshada Soomaaliland iyo xisbiga kulmiyo oo ah bay yiraahdeen dad walaal ah oo wax badan heshiis ku ah aragtidooduna iskhilaafi karto iyagoo hoggaanka xisbiga kulmiyana u soo jeediyay inay sidii dhaqanka u ahayd xaaladda xisbigaasi ku soo dabaalaan wada hadal isu tanaasul iyo wada xaajood wasiirada cusub ee hadaba ku roon yahay iminka igana loo dhiibay aad iyo aad baan u taageersanay soo dhaweynaa ugu horeeyo wasiirka cusub xildhibaankii hore Cali Marreexaan aad iyo aad baan ugu taageerinaa xilka cusub loo magacaabay waana ku shaqeynaa xubnaha xisbiga ama madaxda xisbiga in hadaba ku rooyay inay wixii khilaafaad jira si nabadgelyo ah oo hadaba ku rooyahay ummadda iyo dalka iyo xisbiga wadana ay ugu kala baxaan doorashada golaha dhexe xisbiga oo laga daayo ummadda iyo dalka iyo dadka buuqa iyo sawaxanka waxa kaloo aan taageerinaa oo aan soo dhaweynaa inaan doorashada xisbiga dib loo dhigin dhammaantood waxaan soo dhaweynaynaa si ay qaraamo iyo sharaf ku dheeraatay gaar ahaan wasiirka cusub ee Cali Marreexaan waxaanu taageersanahay oo si mug leh iyo miisaan leh aanu taageersanahay xukuumadda Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo aanu soo dhaweynaynaa wasiirada cusub ee uu magacaabay Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo waxaanu soo dhaweynaynaa gaar ahaan wasiirkayaga Cali Marreexaan oo uu magacaabay howlaha guud waxaanu leenahay garabkaagaan nahay wasiir soo dhawow waa ku soo dhaweynaynaa waa ku mahadnaqaynaa madaxweynuhu ku mahadsan yahay wasiirada cusub waan soo dhaweynaynaa waanu taageeraynaa wada jirka iyo dawladnimada ayaa wax kasta ka weyn aad waxaanu soo dhaweynaynaa wasiirka Cali Marreexaan waliba waxaanu maqlay in loogu daray wadooyinkii waa nin ka soo bixi kara wasaaraddiisa iyo shaqada dambe guudka laga saarayba waa nin mas'uul ah waa nin aanu ku kalsoonahay waxaan leeyahay xilka Allah ku fududeeyo soo dhaweynaya dawladda madaxweynaha ka yahay Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo iyo wasiirada cusub ee uu magacaabay ee wax qabadka ah ee horeena wax qabadkoodu uu u soo gaadhay dadkii soo doortay imikana aanu ka rajaynayno si mugle inay Soomaaliland ba u hantaan itiraafkeeda soo dhaweeyaan Mustafa Ismaan magaalo telefishinka qaranka Soomaaliland magaalada Burco.